أنيق صبحي صلاة كعا نفتن سحيا سجود برا شاور والعيلة ما نقن عسيقاق مولمين calafkaagu muu gurin cududaad ku faantii xoogiyo cadaankani cilla kaagamay iman markiiska imaamu Malik ayaa magaalada Hargeysa munaasabad ugu qabtay ardayda dhamaysatay barashada xifdiga Quraanka Kariimka ah waxa munaasabadaasi daafuray macallin Sheekh Maxamed Maxamuud Khadar Bashiir maamulaha dugsiyada Samraad Cabdilaahi Maxamed Cumar waxay dhamaantood bogaadiyeen soona dhaweeyeen ardayda dhamaysatay xifdiga Quraanka Kariimka iyo waalidiintii ku soo tabcay wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo in aanu arkayno maanta wajiyashina inay ka muuqato farxad iyo runtii arday aad u da'yar oo Quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala xifdiday waxyaabaha aad ka quruxda badan ay mudan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaynu markasta ku mahadino waxaynu iskugu nimi goobtan quruxda badan u nimi wasaynu maamusno ardaydiina kitaabka Ilaahay xambaaray wax la barto wixii ugu qiimaha badnaa xambaaray oo bartay kitaabka Ilaahay ardayda dhamaysatay in Quraanka ay ku dadaalaan oo aanay noqonin qaar halka kaga hadha waayo Soomaalidu waxay tiraahdaa Quraanku waa shimbirna haddii baadka la sii daayo way dushaa run ahaantii waxaad 3 sano ama 4 sano waalidkaaga ku soo tabcayay ee soo xifdiyeysay ee ku soo dadaalaysay ee u galab caraabaysay ama aad u guureynaysay ama aad u kala haysay run ahaantii bil iyo laba aad waxa weeyaan ka maqnaato ayaa aad ku sii deynaysaa sadaka Quraanka Kariimka intaas sano aad soo xifdiyeysay dhinaca kale ardayda dhamaysatay madaarisul Imaam Malik ayaa soo jeediyay nashiidooyin iyo sidoo kale cilmiga ay barteen المحبة والوداد والاحترام لحضارتكم نستقبلكم اليوم في مركزنا المتمنين من الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى سياسي شعيب iyo suxufi Xamse Xayd oo kamid ahaa marti sharaftii ka soo qayb galay ayaa hadallo dhiirigelin ah u jeediyay ardayda dhamaysatay Quraanka Kariimka ah shaqooyinka hadii eegtaan dadka ugu badan ee la qaatay shaqaale waxa weeye shaqada dawladdu ma bixiso waxa bixiyo waxa weeye inta badan dadka ganacsatada ah dadka u shaqeeya waxa lagu xidhaa waa akhlaaq iyo diin ardaygu hadaan akhlaaq lahayn diin lahayn idina shaqo ma siiso shaqada inta badan ma helo waxa uu dalkan haysto inaynu nahay marka waalidiinta waxaan leeyahay ubadkaasi ha ka hadhina cilmigana la garab taagnaada niyadda ugu qiimo badan niyadda u dhisa ubadka kelmadda labaadna waxaan farayaa ama aan iyagana bogaadinaya macallimiintii iyo madrasadii waqtiga dheer soo galiyay maamulaha markiiska Imaam Malik Maxamuud Rashiid Cabdilaahi ayaa ku dheeraaday faa'iidada barashada Quraanka Kariimka ah inagu kulmiyay xafladan aad ka u qiimaha badan leh ee arday hadalkii Ilaahay xifdiday ku celcelisay qaybtay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtoodii u dajiyay aynu xaflad ugu qabanayna maanta waalidiinta qiimaha qaayaha badan ee intaanu ardayda Quraanka u wadnay kala haada u kala hayay cadceeda u taagnaa iyaguna garabkeega taagnaayo intaana la soo shaqaynayay iyaguna way mahadsan yihiin sacabka waalidka loo qaraaco insha Allah ardaydu waalidka sacabka u qaraacaan waqt qiimaha iyo xuquuqda ay leeyihiin ma gudi karaan ilaahay subhanahu wa ta'ala gudi kara Awl Adami CBA Hargeysa